maantu waa maalin ku weyn saxaafadda Soomaaliyeed oo qiimo aad u badan ugu fadhisa. Maanta waxaa lagu soo bandhigaa gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyin kala duwan ee soo gaara wariyaasha Soomaaliyeed oo iyaga ka shaqeeya marxalado aad u adag. Suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan caqabado dhowr ah iyagoo u dhabar adeegaya hawshooda ay bulshada u hayaan. Waxay la kulmayaan handadaado, dilal iyo wixii la halmaala. Anigoo ah agaasinka guud ee warbaahinta Wadin FM ee ka howlgasha magaalada Beledweyne, waxaan baaq cod dheer iyo cod gaabanba ugu jeedinayaa maamulka gobolka iyo suxufiyiinta Soomaaliya ka howlgala ee gobolka Hiiraan inay wada shaqeyn buuxda ay wada yeeshaan. Haddii ay isfahmaan suxufiyiinta iyo maamulka, wada shaqeyn buuxda ay dhexmarto, waxaa la gaari karaa horumar. Bulshadana waxaa loo soo bandhigi karaa wanaag, maadaama ay suxufiyiintu yihiin in afkii bulshada, indhihii bulshada. Marka bulshada iyo suxufiyiinta la yiraahdo waxa iyaga mar walba ay soo bandhigaan waxa ay tabanayaan bulshada, waxayna u gudbiyaan maamulka haddii isaga markaasi jaanis ama fursado uu kaga jawaabo uu siiyo suxufiyiinta, bulshadii waxay u gudbinayaan jawaabihii saxda ah ee dhanka maamulka ay ka sugayeen. Marka waxaan leeyahay hambalyo 3 May oo ah maalin ku weyn suxufiyiinta Soomaaliyeed. meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay hawshaalkiina ka sii wada. insha Allahu tacaala waxaan la gaari doonaa xilli ka wanaagsan xilliga adag ee duruufaha adag maanta ku shaqeynaysaan insha Allah.